بسم الله الرحمن الرحيم. waa tahay maanta waxaan joognaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hobyo oo la dhagax dhigay maanta waxaa garoonka ku sugan sida arkaysaan mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota maamulka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhagax dhigga garoonka oo maanta ku soo beegmay waxaan ka wareysan doonaa mas'uuliyiinta Galmudug halkan ku sugan oo wasiirro iyo wasiir ku-xigeenno iyo maamulka degmada isugu jira waxaan ku hormarayaa maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Hobyo Cabdi Cadde ku soo dhawow. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. maantay waa maalin farxadeed waxaan aad ugu faraxsanahay maantay furitaanka aeroboortka degmada Hobyo oo nagala soo qayb galeen dhammaan wasiirada maamul goboleedka Galmudug ugu horeeyay wasiirka gaadiidka iyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeenta aad waxaan ku faraxsanahay nagala soo qayb galaan dhagax dhigga maanta aeroboortka degmada Hobyo waxaan aad ugu faraxsanahay in muddo inaan ka taabeeyna sidii loogu dhisi lahaa aeroboortka degmada Hobyo maanta ayayna noo bilaabatay oo aad ugu faraxsanahay furitaanka aeroboortka degmada Hobyo ee ka soo qayb galay maamulka Galmudug annaguna waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa annagoo ah maamul goboleedka Galmudug ahaan degmada Hobyo inta maareeye waxa asnaan ku dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka Hobyo Maxamuud كما قدومي كحوجين أهان أد بان بقولك بقول فرحسنا هاي تذكر الشعب كدقمة عن حكوماني قدوميها بحجيها يا ماريا شبا هي معمول كلون رشقة وحن لنا بقولك بقول أد كوسو دوادا معمول كجلمود وإحنا لقبنا ينو ما تنتين أنا جن وحي كرتي ضدني ما علينا إن شاء الله تعالى وكقيب قادنا بقولك بقول فرحسنا هاي كوسو دوادا ديجان كين يدلكين إن شاء الله تعالى قدوميها دقمة Hobyo عبد الله فهد أيام مركنا عبد الله كسر وكورن dhagax dhigga garoonka maanta waa ilaahay mahadiis markuu ugu horeyso waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan leeyahay salaamu alaykum salaan kadib waxaan mahad celin ballaaran u jeedinayaa bulshada deegaanka Hobyo ku nool waxaan mahad celin ballaaran u jeedinayaa hay'adda CBD hay'adda SSF waxaan mahad celin ballaaran u jeedinayaa mas'uuliyiinta wasiirka ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta iyo wasiirka dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka dhulka ee maanta xaadir nagula ah ama nala taagan goobta lagu dhagax dhigayo aeroboortka magaalada Hobyo oo ahaa aeroboor muddo 26 sano ka hor ay ugu dambeysay howlgal marka laga reebo dhowr bilood oo ay samafalayaal iyo dad dadaal badan u sameeyay degmada ay ka sameeyay isku day ah inay diyaarad ka soo dejiyaan balse hadda orod dheer iyo dadaal badan kadib aan helnay fursad ah inaan aeroboorkaas codsano codsiga Ilaahay noo fududeeyay hay'adahan ay naga kaalmeeyaan aanan u helnay mashruucan maalgelinta oo ah mid xaddigiisu uusan dhaweyn aan haysanay kaliya lacag kooban oo ah 265,000 ayna naga dhimantahay lacag 185,000 oo aan doonayn haddii Ilaahay yiraahdo inaan dadka caalamka ku nool ee Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug baaq aan u jeedinayno inay naga caawiyaan dhismaha aeroboortka muddo badan la wada howshiisa waxaana ku guuleystay hay'ad shirkadda Al-Hayat Construction Company aeroboortka dhismihiisu wuxuu noqonayaa 1,200 mitir oo bilowga faceka koowaad ama wajiga koowaad iyo ballac oo ah 40 sentimitir aeroboorkaas oo aan ugu talagalnay in si ku meel gaar hadda loo sii isticmaalo maadaama shaqada ay bilow tahay wajiga koowaad intaas uu noqonayaa waxaana ku xigay face labaad iyo face saddexaad qorshaha dhow iyo qorshaha fog ee kala yihiin qorshaha dhow wuxuu yahay in maanta aan aeroboorkaas dhagax dhigno kan dambana waa qaybaha dambe noo dhiman waana mid international airport aan rajeynayna dilaada inuu noqdo salaam bacdi si kooban waxaan rabaa inaan u yiraahdo aeroboortka degmada Hobyo waqti dheer ayaa la geliyay uu shaqaynayay laakiin shaqo ku filan ma uu shaqaynayn dawlad goboleedka Galmudug wuxuu go'aamiyay in aeroboortka Hobyo uu noqdo aeroboor caalami ah fankiisii bilow weeye ugu horreyn waxaan uga mahad celinaynaa hay'adda SSF iyo hay'adda CBD oo baartiga la fanka ay bixiyeen kadib mashruucaani waa mashruuc la yiraahdo tabar wadaag bulshada Hobyo oo kaashanaysa bulshaweynta Galmudug doorka ay qaateenna waa uga mahad celinaynaa oo ay markii hore ku doorteen mashruucan in looga dhigo aeroboortka Hobyo waxaan rabaa inaan iraahdo ku adkeeyo bulshada Hobyo inay barnaamijkaas aeroboortka dadka mas'uulka uga ah Galmudug oo dhan iyo caalamka waa Hobyo degmadan maamulka iyo bulshadiisa inaad gacan ku wada qabataan oo shaqadaas sidii u fuli lahayd oo degdeg u gali lahayd inaad doorkiina qaadataan
inana haddii ilaahay marka dowlad ahaan doorkeenna waa qaadanaynaa waxa weeye ayroboorka dhirirkiisa waxaa sharciya wasaaradda howlaha guud sharciyaysay 4,000 oo dhirira iyo caloosha oo 1,000 mitir ah dhulkaasi waa dhulka la yidhaahdo dhulka ayroboorka hadda ranweygii ayaa in laga bilaabayaa 1,200 ah faysas labaadaa jira oo yacni dhismayaalkii guud oo ayroboorka u baahnaayoo dhan dalabkoodu waa socdaa waa imanayaa ilaahay idamkiisa ranweygana waa bilowgii haddeer aan isleenahay emergency laga gaaro laakiin wuu wada dhammaystirmayaa qorshihiisuna wuxuu yahay xayndaabku 4,000 haddii uu kor ka yahay inuu ranweygu noqdo 3,000 oo mitir qorshuhu waa sidaas haddii ilaahay ma lagu talagelayaa in shaqadaasu sidaas ku fushana waa rajaynaynaa maamulka degmada ayaana dowlad goboleedka galmudug mas-uul uga ah socodsiinta shaqadan iyo kaabidda kambeniga shaqada wada iyo hay-adda fanka bixinaysa waxaa mas-uul naga ahoo wakiil naga ah maamulka degmada oo wada jira aad iyo aad baan idin mahadinaynaa ilaahay weynaana waa ku mahadinaynaa shaqadaasi guul ayaan u rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka بسم الله الحمد لله waxaan kan ka salaamayaa wasiiru dowlaha howlaha guud gudoomiyaha degmada ku-xigeenada dhammaan mas'uuliyiinta ayaan mataqaanaa degmadan ku sugan iyo bulshaweynta kale ee ka soo qayb gashay bahda saxaafadda dhammaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed Soomaalidu waxay tiraahdaa war la qabaa xiisa ma leh maanta halkan waxaan u taaganahay inaan dhagax dhigno elaboorka degmada Hobyo elaboorka inuu qayb weyn noo yahay bulshadana u yahay lafdhabar u yahay waxa ka soo sheekeeyay mas'uuliyiintii iga horeyso dhanaa ka soo sheekeysay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay u timid maantay laba qorshe u timid maanta labada qorshe u timid maanta waxay tahay kow inay dhagax dhigto elaboorkii yacni mataqaanaa degmada Hobyo labo inay xafiiskii wasaaradda gaadiidka ka furto degmada Hobyo maadaama ay dekadii furantay islaanahana ganacsi kala duwan ayaa ka soo degaya oo kamid yahay gaadiidkuna wuxuu u baahan yahay dabcan sharci u baahan yahay wax aan sharci lahayn kuma dhaqdhaqaaqi doonaan oo gaadiid ah deegaanada ay ka taliso galmudug hadday tahay ama taqaanaa madaxda naga sareysa iyo madaxda halka ku suganba iyo dhammaan bulshooyintaba waxaan raali ka wada nahay horumarka ama taqaanaa dowlad goboleedka galmudug sidaas darteed waxaan kaloon soo marnay wadadii beryahan bay ama taqaanaa ka socotay oo lagu talagalay wasil wadada hadda waxay maraysaa meel fiican bay maraysaa laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan bay u baahan tahay bulshada ka wada qayb qaadatay u baahan tahay waxaan dareemayaa bulshadu weli way jiiftaa wayna soo toostay inta soo toostay waxaan leeyahay bulshada si fiican ha u gaarsiido hay'adda hadda elaboorka ama taqaanaa xawaha ka howl gashayna waxaan leenahay ha ku daysadeen hay'adaha kalena ha ku daysadeen bulshadii u dhalatay halkaana ha ka soo qayb galeen ha u soo dhamaystirmeen haddii dalka joogaan haddii dibadda joogaanba waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdullaahi oo ka mid ah hay'adda CBD oo dhisaysa garoonka bismillaahi raxmaani raxiim sidaa la socotaan mashruucan waxaa loogu magac daray tabar wadaag waxaa bixisay fankiisa inta badan SSF hay'ad la yiraahdo qayb ka midana waxaa ku darsanaya bulshada deegaanka insha Allah waxaa fulin doona oo ku guuleystay mashruucan inay dhisaan kambaniga alxayaad la yiraahdo dhererka garoonka wuxuu noqon doonaa 1,200 oo mitir runwayga inta hadda diyaarka ah حسين كرسي دبع وكسر جوجت قلب مدوق أيام كنا كرافة سنة بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بهرتم مهات إسكاله وعن آد وفرح سنة هاي
ayraboorka maanta hobyo laga dhisayo anigoo ka wakiila qurba joogta reer Canada oo waliba Toronto magacooda ku hadlaya waxaan leeyahay maanta farxad weyn ayay noo tahay galmudug bay u tahay dadkoo dhan bay u tahay waddankoo dhan bayna u tahay waxaan rabnaa anoo ku hadlaya magaca galmudug ee dhalinyarada ama dadka qurba joogta ah waxaan rajaynaynaa inaan ka soo qayb galno iskaa wax u qabsa ha noqoto dhaqaale ha noqoto inaan hadday arkaan masawirkayga iyo magacayga inay isdiyaariyaan inay wax ka qabtaan meeshaas il baa noo furantay waa iska indhala-ayna habba il baa noo furmaysa maantay indhihii labaad baa noo furmaya marka dadka hobyo deganna waxaan leeyahay ha laga qayb qaato ayraboorka maahan shirkad baa dhisaysa dadku waa inay iskaa wax u qabso u shaqeeyaan la caawinaa lala shaqeeyaa wax lala qabtaa anuu intaasna roobyood baan u soo jeedinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya ilaahay baa mahad iska leh wasiirra dowlayaasha yimid agaasimayaasha odayaasha duqa magaalada ku-xigeenadiisa shacabka aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqo wanaagsan asalaamu calaykum magacayga waa Dhoofa Cabdulqaadir waxaan matalayaa ka socdaa marka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo dhashay galmudug waxaan ku boorinayaa waxaan ku faraxsanahay maanta ayraboorkan oo furay qabri madow aan ku jirnay qabriga madow maanta nala ka saaray waxaa naga saaray wasiirada maamulayaasha maxay ahayd madaxda noo timid waana ku faraxsanahay maanta waxba ma dhihi kara waa ana sayda u faraxsan isku darsan marka waxaan rajaynayaa riyadan riyaan ku jirnay riyada inay noo dhawaato taas maanta aan ku rajaynayaa hadii Ilaahay yiraahdo waana ku faraxsanahay assalaamu calaykum معلم ما كمل إن أيربور كورة دي بدقاقة عن كلام ما بتشيدين يا مام كده قلم وسير هذا دنيا كورة دمجة مارياش بعد صحافة شعب كشيء قلم خاصة هذا الرؤية أنت هذا أنت كسر دافع ككبني حان هذا ما في الحسن نو كتحراعنا دبنا نورين تايربورك عن فيرين حق دقالها waxaan isku dayi doonaa insha Allah saakana dib u bilownay wax ka qabashada ayraboorka Hobyo aan rajaynayno inuu xilliga lagu talagalay ku soo dhamaado runway-ga hadda diyaarka oo qabaniga heshiiska kula galay hay'adda dhererkiisu waa 1200 mitir balliciisuna waa 40 qayb waxaa ka mid ah qaybta diyaaraddu degayso magaceeda loo yaqaano baaki كبني الحياة وديار ويا تيسير وترجع كل ما يو إن شاء الله تعالى بدأ فرق الشعب قصوية كل ما يهدي لا يقلاله وحي مسكع يحوق يحول عنها هنا وقرندون إن شاء الله ما سنتي